kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel wada duweynaad ka joogtaan Ramadaan Kariim haatana ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub ee aad kala socon jirteen wararkii ugu dambeeyay ee dadka caanka ah ee Soomaalida iyo kuwa adduunka fanaanada caanka ah ee Nimco Yaasiin walaasheed adeega ayaa mar kale ka soo jawaabtay sababta ay maxkamadda uga baaqatay si looga qaado DNA iyada iyo Nimco Yaasiin muranka dhex taagan waxaana tiri halkan waxaan ka hadlaysay adeega Yaasiin Araale maanta haddaan reer sheekh nahay maxay hay toorayeen waana laga duubay Nimco Yaasiin dhalashadeedii baa laga sheekeeyay inayna reer sheekh tahay inay sheekh ku dhalatay marka hal kelmad bay igu soo celisay maxkamadda adeegu way iman weyday bay tidhi maan iman waayin markay maxkamadda ka hadashay habeenkii rag bay ii samaysay raggii baa ila soo hadlay telefonkaygu la soo hadlayna bilaa number buu ahaa naadeegaay na gaariga soo raac bariya galbeed soo raac oo Hargeysa kaalay oo maxkamadda kaalay nimcana kaligeed bay imanaysaa adiguna kaligaa kaalay dhacaankii baa laydinka qaadaya Nairobi baa loo diraya waxaan ku yidhi ma waxaa tahay kalkaaliye maxkamadda nahay warqadahaagiina waanu helay yaa waxaan ku yidhi talada Ilaahay baa iska leh mar labaadkana rag baa iska leh markaas suldaankaygii baan la tashanayaa Sultan Ibrahim Abdi dabta habeenkii baan odaygii la hadlay waxaan ku waxa la iga soo garaacay telefoon caynkaasa adeegay maxkamadda kaalay baa leeyay ma kalkaaliye baa ii yeedhay sultaankii subaxnimadii buu tagay wuxuu tagay kalkaaliyihii iyo odaygii xaakimka ahaayeen war fadhiisanay anagu adeega umaanu yeedhin maxay hay toolaad markaan adeega u baahnaa adeeg ka mas'uula oo aan ku yeedhaynaa imkana maxkamaddu way xidhan tahay halkii oo taagan buu hadana yimi buuli gudoomiyii maxkamadda haystay warta sultaanka lagu soo noqonayaa arkiisa dhameeyay dabeeto maxkamaddu way xidhan tahay maxkamadan ka baaqday iyo cabsi haysay iyo curiyaa waan xanuunsaday waana bogsaday iyo curiyaamadan ahaa midna ma jirin hadda ma garatay runina run waa beeno waa runina waa run dhaga ma guuraan inda dhaladkii kama tago biyana kama yidhimayaan birina ka goymaysa waa Nimco Yaasiin Araale wayna Araale Axmed wayna Araale yibir wassalaamu calaykum fanaanada Lubnaaniyada ah ee Elisa ayaa sheegtay in maalinta ciidda heesta labaad ee albumkeeda 2020 soo fasaxayso heestaas oo ah lahjada Lubnaaniyada waxaana xusid mudan in bishii hore heesta koowaad ee albumka oo muuqaalada ay soo fasaxday muuqaalka heesta oo fikrad ahaan ay uga dhigtay karantiilka lagu jiro iyo kala fogaanshaha waxaana marti sharaf muuqaalkaas u noqotay xiddigada ay isku dalka ka soo jeedaan ee Hayfa Wahbe NBC iyo shirkadda hostimada ee Platinum Records ayaa u dabaaldegay dhalashada xiddigadooda da'da yar ee Xarag Turk oo noqotay hadda 18 jir waxaanay kadis uga dhigan inay ku marti qaadaan barnaamijka fanka NBC Trending oo Skype ay kala hadleen si toos ah kadibna ugu hambalyeeyeen dhalashadeeda iyagoo u qaaday heesta dhalashada una soo gudbiyay muuqaal taageerayaasheedu ay u soo duubeen Karishma Kapoor ayaa ka qayb qaadatay olole garab istaag oo loogu talagalay dumarka tacadiyada kala duwan kala kulma guriga iyo kuwa jirdilka uu ku iman karo muddada karantiilka lagu jiro waxaana tiri waxaan ahay codkooda maanta iyo codka qaar badan oo dhibanayaal ku ah guryaha waxaana challenge gareysay Karishma saaxiibadeed atrishada caanka ah ee Sonam Kapoor inay iyadana ololaha ku soo biirto waxaana xusid mudan in Bibasha Basu ay ahayd xiddigadii ugu horeeyay ee challenge-kan dumarka lagu helinayo qayb qaata ee dalka India Kareena Kapoor ayaa barteeda Instagram-ka ku faafisay sawir ay kula jirto xaajigeeda Saif Ali Khan sawirkaas oo ah xusuustii ay ku qaadatay Morocco 2009 haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe iyo gambalaalka taabo si aanay ku dhaafin muuqaaladan soo gelino sidoo kale nagaga xidhno bugagan ku leenahay baraha bulshada gaar ahaan Facebookga Instagram-ka iyo Snapchat-ka